بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي يدقل كينا نقول هاي مريكة يوتيوب اسماعيل سيد فضلنا دادكو عصوبت هاي channel كسو دوو سبسكرايب ليه كمبلاكم فروفي وغنا ليقرأ أدا أدرنا ولا joogtayna aad baad mahadsantahay bashbashiyo barwaaqo baraare adduun baa idin rajeynaya intaan adduunyada joogno aakhirana jannatu firdaws allah nagu casuumo dhamaanteynba maanta waxaan kelmad yar oo kooban ka oran doonaa haddii ilaahay idamkeeda leeyahay ayaamahan aynu bilownay ama imika aynu ku jirno ee aadka u fadliga badan leh bishan dilxija tobankeeda cisho ee ugu horeeya aynu kaga faa'iideysan doono hadduu ilaahay inoo ogolaado kelmado yar oo kooban ayaamaha aynu ku jirnaa waa ayaamaha ugu aftalsan ama ugu khayrka badan leh ama ugu wanaagsan ayaamaha adduunka la joogo korkooda 12 bilood ee sanadka ku jira ayaamahan yar ee kooban ayaa ugu khayr badan ugu wanaagsan waxa la qabto camal wanaagsan la sameeyaana uu ugu wanaagsan yahay qofkii dambi iyo xumaan iyo maxsi kale ku dhacaano intii markii hore ay ahayd in ka badan loo qorayo ama loo laban laabaya ama loo jibaarayaaba ayaamaha yar ee kooban ee dibadda u wanaagsan uu nabigu yiri ayaamahan camal la sameeyo oo wanaagsan camal ka wanaagsan oo xagga ilaahay laga jecel yahay ma jiro saxaabada warka weydiiyay oo ku yiri xataa qof jidkii ilaahay ku dhintay oo fi sabiililaahi ahaa khayrka iyo wanaagga iyo bashbashka iyo barwaaqada uu leeyahay ayaamahan camalka sameeya ka wanaagsan miyaa isna wuxuu ugu jawaabay haa iyaga ka wanaagsan ilaa nin mooyaane ninkaas oo intuu baxay isagiyo maalkiisii naftiisaba intuu jidka ilaahay ugu baxay dibadda sidaa ku dhintay aan waxba ka soo noqonin naftiisina aanay soo noqonin oo ku dhintay dagaalkii maalkii iyo adduunkii ku bixiyay dagaalka ku galeeno iyaguna ay sidaa ku baxeen qofkaas uunba ka wanaagsan ama ka fadli badan ama ka dheeraad leh dabata ayaamaha yar ee kooban ee aynu intaan caafimaad ku soo gaarnay ilaahay uu caafimaad ugu soo gaarsiiyay inaynu ka faa'iideysano oo wax wanaagsan uga faa'iideysano ayaan anigu naftayda ka bilaabay inuu baraarujiyo dhamaanteynba waxyaabaha aynu kaga faa'iideysan karno ama ayaamaha yar ee kooban iduu ilaahay amni iyo caafimaad ugu soo gaarsiiyay aynu kaga faa'iideysanayno waxa kamid ah inaynu salaadaha jamca ku ilaalino oo salaad kasta oo shanta salaadood aynu tukanayno haddii markii hore yara sagsaagay yaro wax kaaga yiri jira meelaha qaarkood inaad iska wada toosiso oo ayaamaha yar aynu ka faa'iideysano oo shanta salaadoodba jamca weliba sufuufta hore aan ku dadaalo in aynu quraanka akhrino intii karaankeena ah oo qof waliba intuu akhriyo karaayo oo akhriyo maalintii iyo habeenkiiba jaaniska xilligu helayo hadduu habeen helayo hadduu maalin helayo hadduu labada isku helayo waqtiga yaroo go-aan oo iska goyso ayaa wax badan inoo qabanaya in aynu maxay ahayd tooley sadaqada badino oo qof walba ilaahay wuxuu dhiibay in yar iyo in weynba inaynu sadaqada ballaarino ayaamahan oo aynu cid walo taag daran iyo cid walo maxay ahayd tooley aan kari hayninba aynu nagu siino qof walba intuu karaayo ilaa dadku kulli isku tamar maaha qof wax uu karay midba in buuran karaayo midba in yar karaayo inta yar ee aad karayso odhanin maxay ahayd tooley intan waxba tari maysa maxaan ka bixiyaa inta yar iska bixi ducada ayaamahan kale aad in loo badiyo aad ducaysato aakhira iyo iftiinka wax ku anfacaya adiga naftaada iyo ehelkaaga qaraabada intaad jeceshaba wax anfacaya inaad ilaahay weydiisato waxa kaloo ayaamahan aad u wanaagsan in la badiyo saliga nebiga sallallahu alayhi wasallam oo nebiga aad lagu saliyo oo nebiga saligiisa la badiyo tasbiixda kala duwan iyo adkaarta in iyadana aad loo wado oo intii qof waliba uu karayo karaankiisa ah hadduu ilaahay mahadinayo iyo hadduu ilaahay u shukriyayo iyo hadduu ilaahay maxay ahayd toole weyneynayo tacdiimkiisa weynaantiisa uu sheegayaba in waliba inaynu ku dadaalo aynaan waxba ula hadhin kolley dadku iska mashquulsan yihiin danaha dadku iska fara badan yihiin dadku kala duwan yihiin midba dangaara iyo mashquulkiisa u badan ayaamaha yar ee kooban ee 10 cisho maanta waa maalintii labaad marayno haddii ilaahay caafimaad iyo amni iyo bashbash iyo barwaaqo baraare nagu soo gaarsiiyay in aynu uga faa'iideysano waxyaabaha kala duwan ee aan soo sheegay ayaan aniga naftayda ka bilaabaya idinkan oo idin soo gaarsiinayo idinku wacdiyo idinku waaninaya inaynu uga faa'iideysano inta ayaa maanta muuqatay inaan idin la wadaago dhamaantiinba meel kasta joogtaan aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu